Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan akhyaarta ku xidhan kanaalkeena barashada shaybaadhka meel kasta aad joogtaan soo dhowaada. Ayaamaha waxaan idiin soo gudbin jirnay casharaan la taxalluqa xubnaha jidhka bini'aadanka qayb ahaan internal organiska loo yaqaano. Waxaan soo qaadanay thyroidka oo maalintii dhaweytoola soo sharaxnay. Maantana waxaan ku xigsiinaynaa tuumbada dheer ee hunguriga insha Allah. Labada qaybood ee esophaguska iyo trachea qaybta hawada qaada iyo qaybta cuntada qaada labadaas sida caadiga ah waxaan isweydiinaynaa waa saddex qodob xagga ay ku yaalaan shaqada ay qabtaan iyo xanuunada ku dhaca caadi ahaan waynu iska garanaynaa inta badan dee hunguriga ama tuumbada dheer ee labada u qaybsantay esophaguska iyo ama la yiraahdo tuumbada hunguriga ee cuntada caloosha geysa iyo hawada sanbabka geysa haddaynu saa u kala qaadno qof kasta wuu garanaya midna dee hawada geysa wuu odhanayaa shaqadeeda midna dee cuntaday caloosha u dhaadhicisa marka waxaa jirta xanuunada ku dhaca iyo xagga ay ku yaalaan iyo hunguriga qaybta hawada iyo qaybta kale keebaa soo horeeya iyo waxyaabahaas aynu isweydiin doonaa ugu horreyn haddaynu ku bilowno hunguriga hawada ayaa xagga hore soo xiga oo qaybtan hore ee hawadan hore soo xigtay tuumbada weyn waa qaybta hawada oo qaado waxay ka bilaabantaa qaybta larynxka la yiraahdo ama sanduuqa codka ee hunguriga waxay martaa qaybtan hore ee qoorta ee xaggan hore soo xigta ee la taaban karo waxaana ku dhamaataa laabta dhexdeeda oo ilaa iyo ay sanbabka ka gaarayso isagoo halkaa ugu kala qaybsami doona laba qaybood oo sheegi doono oo dee labadii sanbabood kala tegaya oo bronchi loo yaqaano bartaa ku qaybsamo tuumbooyinka labada koona kala taga bronchi baa loo yaqaanaa qaybtan kale ee hunguriga iyada qaybta cuntada qaada isaga qudhiis wuxuu ka bilaabaa qaybta pharynxka la yiraahdo ee cunaha guud afka gudihiisa dhexdeeda wuxuu maraa gadaasha qaybta hawada hungurigan hawada ee soo xiga xaggan hore ee horaan soo xiga gadaashiisa ayuu maraa qaybta cuntada marka xilliyada uu qofku wax cunayo iyadu way xidhantaa oo qaybta hawada waa la xidhaya markaad sideeda wax liqoo kale si aanu dee khalkhalo imaanin oo waxaad dareemi kartaa markaad wax yar ay si noqdaan ama wax yar haddad yar ay hawada qaybta raacaan markaba waad ku facaysaayo waxaa laga yaabaa bariis aad afka ka cunto inaad sanka ka soo tuurto marka isaguna waa kaasoo wuxuu maraa qaybta dambe ee qaybtan hore ee hunguriga hawada gadaashiisa ayuu maraa waxaanu ku dhammaadaa isagu toos ugu dhammaadaa caloosha mana qaybsamo waa tuumbo dherersan ilaa ay caloosha ay ku dhaadhacayso marka labadooda keebaa soo horeeya labadooda waxa soo horeeya qaybta hawada qaada oo loo yaqaano trachea ayaa xaggan hore soo xigta qaybta esophaguska la yiraahdaana wuxuu maraa xagga dambe gadaasha trachea uu maraa shaqa ahaan haddaba maxay qabtaan haddii aynu soo horreysiino hunguriga hawada qaada wuxuu gudbiyaa hawada isagoo u diraya weliba hawada inkastoo labaduba soo maraan hawada oxygenta iyo deoxygenatorka labaduba isagoo sanbabada u diraya waxaa kale oo uu sifeeyaa hawada oo boodhka iyo jeermiska iyo waxyaabahaas ka qabtaa sidoo kale waxaa kale oo maadaama oo marinkan hawada uu ka samaysan yahay gidaaro qaybahaasi si aysan u dumin oo cartilageyadaasi ayna u dhicin buu isaguna ayuu qayb muhiima ka qaataa waxaa kale uu door muhiima ka qaataa maxay ahayd holay neefsiga iyo dhawaqan qodkiisa dhawaqan codka aynu maqallo iyo neefsigaba labadaba waxaa muhiim ah oo aada uga qayb qaata qaybta loo yaqaano trachea ama hunguriga hawada qaada hunguriga cuntada qaada isaga shaqadiisu waa gudbinta cuntada iyo cabitaanka waxaa kaloo uu sameeyaa waxaa kaloo ku yaala muruq isagana loo yaqaano peristalsis deedna muruqaas wuxuu ka sahlaa tusaale markaad wax liqdo in toos loo cadaadiyo cuntadii ilaa iyo caloosha la geeyo waayo haddaad wax liqdo oo inta yar hore dhaafto hungurigan dhow ay ku istaagto khatar bay ahaan lahayd oo dee qofkii xaalad caafimaad darra ayaa ku dhici lahayd marka muruq baa jira muruqaasoo loo yaqaano peristalsis oo cadaadis ku sameeya cuntada ilaa iyo caloosha laga geynayo marka haddaynu intaa kaga nimaadno shaqooyinkooda
labada qaybood. Waxaan isweydiinaynaa xanuunada ku dhaca. Haddaynu horeysiino marinka hawada, waxa ku dhaca caabuq oo maxay ahayd waxaa la yidhaha bronchitis wax la yidhaha baa ku dhaca. Sidoo kale cidhiidhi baa ku yimaada mararka qaar. Ama ha noqoto cidhiidhigaasi maadaama uu yahay isagu gidaaradan uu ka samaysan yahay gurigan hawada qaado oo kale kama samaysan, waa tuumbo yaroo dhuuban oo dheer. Marka mararka qaar haddiiba ay cillad kale oo timaado, tusaale ahaan tonsillitis ama barar ama wax ku yimaadaan, barar baa iman kara. Sidoo kale waxaa iyana ku dhici kara kansar, oo kansarku iyadana wuu ku dhici karaa. Haddaynu eegno qaybtan kale ay cuntadu marto, waxyaabaha ugu badan ee ku sababa iyadana waa caabuqaas, oo badanka ay sababaan. Iyo sidoo kale waxaa kaloo marka ku dhaca waxa loo yaqaan aashitada caloosha ka soo noqota, ama tusaale ahaan kulayl hadduu caloosha ka soo baxayo, ama qofka acidity oo weliba acidic gooyladan loo yaqaano maxay ahayd reflux acid-ka qaybta loo yaqaano, iyadana way saameysaa. Sidoo kale sidii tii hore xididadoo kale waxyaabahaas hadday bararaan way saameysaa. Iyo kansarka ayaa iyadana sidoo kale ku dhaca. Marka guud ahaan intaasaynu kusoo gabagabeynaa insha Allah. Waxaan rajeynayaa inaad si fiican uga bogateen qayb kasta halkay ku taalo. Labadaas tuumbe midna caloosha taga midna sambabada ka soo horeeya, shaqooyinka ay jirka u qabtaan, xanuunada ku dhaca sidoo kale. Insha Allah casharaantaas oo taxanaa baan idiin soo gudbin doonaa maalin walba haddii Ilaahay yiraahdo, ilaa intaynu ka dhammaynayno. Maalmo mid aynu soo qaadan doonaa. Kalley in wax la diyaariyo oo dad loo soo gudbiyaa waqti bay iska qaadataa, way iska adag tahay. Raalihaada markasta waxay dhaca casharaanteenu si taxanaa bay soconayaan, laakiin kalley saameyn badan ayaa iska jirta. Marka insha Allah dhammaan asxaabta nagu xidhan aad baad mahadsantihiin. Meel fiican buu inoo marayaa channelkeena. Subscribe-ta, like-ta, share-ta nala moogaanin insha Allah. Meel kastoo joogtaan waxaan leeyahay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.